عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii maanta farxad ayay ii tahay inkastoo aan ahaa originka Reedaynile aan u badnaa halkan hawlo badan aan ka soo qabtay laakiin maanta aniga oo xilka hayo inaan imaado aad ayaan ugu faraxsanahay. degmadan waa ay ka duwan tahay degmooyinka kale ee magaalada Muqdisho. waa degmo haysata fursad ballaaran dadkeeduna ay yihiin dad xadaarad leh oo midaysan oo nabadoon ah. runtii hadday hadalkii walaalkay wasiir Sambalosh uu sheegay afarta walxood uu sheegay Reedaynile waa ka duwan yihiin. runtii waa dad midaysan waa dad xadaarad leh waa dad hogaamiye dhaqaalaha dalka iyagoo intaas kulansaday haddana waa dad istaahilay inay na hogaamiyaan maadaama ay yihiin orodkeennii. taas haddaan ka gudbo dalka doorasho ayuu aadayaa. doorasho haddii la aadayana xaqiiqdii dadka Muqdisho waa halbowlihii dalka iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu badan ee dalka ay ku soo dhacaysaa maadaama aan joogno dhammaanteen magaalada madaxdii dalka. waana waajib in la saaran in doorashadaas aan u wada guntanno oo aan daadihinno. aniga ka ra'iisul wasaare ahaanna xaqiiqdii maanta hortiinaan ka ballan qaadayaa waxaan rabaa si cadaalad iyo hufnaan iyo alla ka cabsi leh inaan u fuliyo doorashadaas. waxaan tusaale u soo qaadanayaa saaxiibka iga horreeya ex-ra'iisul wasaare xasan cali khayre oo musharax ah iyo madaxweyne farmaajo hadday tartamayaan waa ii sinaanayaan. wax dan ah oo gaar ah kama lihi doorashadan cid gooni ah oo aan leeyahay hebel adan ku wataa oo aan ku xaglinayaana ma jirto. cadaaladdaas inaan falaa layga rabaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. walaalahay musharaxiinta iyaga waxaan leeyahay markastaan aan dhihi jiray igu kalsoonaada aniga ayaa idin jooga. dambiishaas wixii hore xun oo Sambalosh ku ridayna aan ku wada ridno hore aan uga soconno. marka Reedaynile aad u mahadsantihiin insha Allah dalkan waa ka gudbinaynaa dhammaanteen annagoo gacmaha haysanno jinni iyo jinni arag ninkii la qaybsado annagoo wada jirna waa ka gudbinaynaa insha Allah.